kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub oo aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo war ka soo saaray xasuuqii kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka Hiiraan iyadoo dhowr iyo 20 qof lagu dilay gobolka Hiiraan sidoo kalena la gubay gaadiid iyo hanti shacabkaasi ay u wadeen siyaasiyiinta beesha xawaadle ee ka soo jeedo gobolka Hiiraan oo ku dhawaaqay dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab sidoo kalena go'aansaday in ay tagaan gobolka Hiiraan oo ay u hiiliyaan shacabka halkaasi lagu xasuuqay. afayeenka kooxda Al-Shabaab oo cadeeyay in dadka ay beegsadeen aysan ahayn dad shacab ah balse ay yihiin kooxo ka tirsan kooxda macawisleyda. iyo sidoo kale daawadayaal waxaanu idin soo gudbin doonaa muddo 70 sano kadib booliiska wadanka UK oo raali gelin ka bixiyay nin Soomaali ah oo si xaq darro ah loogu daldalay wadankaasi. qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino. ayna ku bilownaa daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay falkii ka dhacay gobolka Hiiraan ee dad badan ay ku xasuuqeen kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in ficilada guracan ee ka dhacay halkaasi ay yihiin mid sal iyo raad toona aan ku lahayn diinta islaamka, wadaniyadda iyo dhaqanka suuban. tusaalena ay u yihiin cadaawadda ay u qabaan shacabkeena berimageeyada ah iyo weliba sida caqabada ay ugu yihiin guud ahaan horumarka dalka, ayuu yiri madaxweyne Xasan oo ka hadlayay xasuuqa kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka Hiiraan. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in kooxda Al-Shabaab aysan shacabka Soomaaliyeed u ogolayn nolol, nabad, xasilooni, amni iyo horumar, taasi beddelkeeduna ay isku dayaan cabsigelinta, daadinta dhiigga muwaadiniinta, dhaca hantidooda, burburinta ceelasha ay dadka reer miyiga ah xoolaha ka waraabsadaan iyo weliba xasuuqa dadka rayidka ah. madaxweynaha Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu og yahay dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay ku hayaan kooxda Al-Shabaab balse uu ka dalbanayo in si wadajir ah kooxdaasi loola dagaalamo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeedba ay isgarabsanayaan tallaabooyin wadajir oo degdegna ay qaadi doonaan si loo ciribtiro kooxda Al-Shabaab. dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku matalo gobolka Hiiraan gaar ahaan dadkii lagu laayay duleedka Maxaas ee beesha xawaadle ayaa kulan degdeg ah isugu yimid kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. xildhibaanadan oo dhammaantood ka soo jeedo beesha xawaadle ayaa shirkooda kadib waxay la hadleen warbaahinta waxaana ay wacad ku mareen in ay ka argoosan doonaan kooxda Al-Shabaab una hiilin doonaan dadkooda la laayay. xildhibaanadan ayaa sheegay inay u safri doonaan Hiiraan isla markaasina ay hogaamin doonaan dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab. lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo sida nimanka saaxiibada xildhibaanada ay hortay uga tacsiyeeyeen falkii argagaxa ahaa ee arxanlaawayaasha ugus ay ku sameeyeen dad musaafura oo jid marayay oo ay si arxan darro ah aysan u kala reebin caruur, haween, oday iyo maato dadkii berimageydada ahaa oo masaafurka ah. runtii waxayna tusinaysaa inay nimankaasi jabeen oo ay liitaan dad qaadico dariiq isu bedelay oo inay dadkii jidadka u istaagaan ayay noqdeen. waxaan aad u dhiirigelinayaa dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka qayb gala gobolka Hiiraan oo cashir lama iloobaana u dhigay 2 isbuuc ka hor iyo ciidamada u dhaqdhaqaaqa deegaanka gobolka Hiiraan lagu magacaabo macawisleyda oo ayaga laftigooda aad iyo aad god kasta ay galaan kala baxa. sidaad maqasheen xalay saqdi dhexe markay gubeen baabuurtaas oo dadkii ay laayeen isla markii waxa ku soo dhaqaaqay ciidamadaas macawisleyda oo baabuurtii oo gubanaysay iyo dadkii la laayay kor yimid. haddana saasay tahay waa waayeen meel ay ka baxeen iyo meel ay galeen. runtii meel walba ay galaan waa lagu baacsan doonaa waana laga daba tegi doonaa mana laga hari doono. waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan gobolka Hiiraan
aan u sheego dadkaas arxanlaawayaasha ah malaha walaal malaha waalid malaha ehel qaarkeen guryaheennaan ku haysanaa waan naqaanaa meeshay joogaan waxaan rabnaa in dowladda iyo ciidamada kala duwan loo sheego meel walba ay joogaan dadkaas waa cadow islaam maaha islaamkay la diriraan nolosha bini aadamkay ka soo horjeedaan waxaan rabnaa in qof kasta uu ogyahay qofka guriga ka degayo qof kasta uu ogyahay qofka xaafadiisa ku soo kordhay qof walba uu ogyahay qofka maqaayadda uu subaxii tago ka quraacanaya ama raba inuu dhulka xaaqo haddaan lala shaqaynin dowladda haddaan lala shaqaynin ciidamada amniga nimankaas mar walba dhagar bay maleegayaan waxaan rabnaa in shacabka hooyooyinka gabdhaha walaalaha wiilasha dhalinyarada isboortiga cid walbo ay soo aragto cid allaale iyo ciddii ku cusub xaafadooda deegaankooda dadkaana dadka umaba ekaba waa dad dhiigicaba waa dad ayaga dhan duurjooga waa animals uma eka dadka caadiga waa garan karta xaafadaada markuu ku soo kordho waxaan rabnaa inay shacabka la shaqeeyaan dadka deegaanka waxaan ballan qaadaynaa annaga maadaama aan nahay xildhibaanadii matalaya dadkaas deegaanka inaan imaan doono oon ka barbar dagaalami doono hogaamina doono ciidamada isaga xoreynaya dadkaas arxanlaawayaasha waqtigoodii waa dhammaaday waa dhow yahay meel dheer ma jiro insha allahu tacaala maalmaha u dhiman ma badna waxaan rabnaa in si wada jira dhammaan gobolka hiiraan nimankaas laysaga saaro gobolada dariska ah ama maamul goboleedyada dariska sida galmudug iyo koonfur galbeed waxaan rabnaa in maamulada laftigooda ay ka shaqeeyaan deegaamadooda aysan u ogolaanin in nimankan argagixisada ay si xor ah ugu dhaqdhaqaaqaan gobolada kale ay mid walba midka kale ka taageeraan walaalayaalow si wada jira ayaa looga adkaan karaa maanta gobol keliya hadduu la dagaalamo nimankan opportunity haystaan waa in wadooyinka ay maraan laga xiro waa in accesska ay leeyihiin iyo siday dadku u dhex maraan meel walba laga gooyo waa in laba meel isku sheegta la waayo nimankan waqtigooda waa yaryahay waxaan rabnaa inaan dhammaystirno insha allahu tacaala maalmaha soo socdana gobolka hiiraan waa laga dhammaystiri doonaa haddeertaana ku dhufoo ka dhaqaaqay bilaabeen iyo jidgooya qaadicul dariiqnimo wixii islaamka uu diiday ayay hadda bilaabeen inay ku dhaqmaan waadna aragteen dadkay maanta laayeen caruur iyo haween iyo dad ganacsata oo jid marayay inay jidku istaagaan ee la dagaalamaan ciidamadii dagaalamayay waa yaqaanaan meeshii laga soo kacsaday yaqaanaan teedaan iyo maxaas iyo dhulkii laga soo furtoo dhan waa awoodi waayeen inay ku noqdaan inay dadka jidadka u istaagaan ay taagan yihiin waxaan rabnaa in dadkaas si wada jira looga saaro dalka dhammaan meel walba ay joogaanna laga soo saaro aysan helin meel gabaad ay ku gabadaan waa kala hadalnay dowladda federaalka waxayna ballan qaadeen inay si dhaqso ah u gaarsiin doonaan wax walba oo ay u baahan yihiin dadkaas deegaanka iyo ciidamadooda iyo maamulka meesha joogaba insha allahu tacaala annagana waa idiin imaan doonaa qaybna waa ka noqon doonaa abaabulka socdo iyo gulufkan laysaga xoreyn doono nimankan arxanlaawayaasha ugus waana soo dhowyaa waqtigooda insha allahu tacaala hala dulqaato si wada jirna nimankaas aan ula dagaalano kooxda al-shabaab ayaa waxaa deegaan hoostaga maxaas oo hiiraan ka tirsan ay ku xasuuqeen ugu yaraan 30 qof oo shacab ah sidoo kalena waxaa la gubay ilaa 8 gawaari oo cunto u siday dadka waxaana ay ku andacoonayaan kooxda al-shabaab in dadka shacabka ah aysan laayin balse ay laayeen macawiisley kooxda la yiraahdo dadka tirsan afayeenka ciidamada al-shabaab Cabdilcaziz Abu Mus'ab ayaana ka hadlay weerarka dadka badan ay ku laayeen ee ka dhacay gobolka Hiiraan ninkan u hadlay al-shabaab ayaa ku dooday in qabiil gaar ah aysan beegsanin balse ay baacsanayaan kooxda macawiisley oo dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda ay abaabulayaan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale Abu Mus'ab waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay markasta tijaabiso farsamo cusub oo ay kula dagaalamayso al-shabaab waxaana uu qiray in dagaal ay gelisay oo ay abaabushay macawiisley dadka deegaanka ah waxa uu yiri waxaan ognahay kuwa ku shaqaysanaya kacdoonkan laakiin waa farsamo duug ah oo boqolaal jeer aad hore u soo tijaabiseen kuna fashilanteen annaguna duulaan kuma nihin qabiil gaar ah ayuu yiri Abu Mus'ab oo afayeenka al-shabaab sidoo kale Abu Mus'ab ayaa sheegay inay ka warqabaan in uu socdo qorshaha qabaa'ilka lagu soo bandhigayo
inay dagaal kala hortagaan al-shabaab waxaana uu tilmaamay in qorshahaasi iyo dhagaraha loo soo maleegayo ay mar walba ka hortagi doonaan. ugu dambeyntii sarkaalkan ka tirsan al-shabaab ayaa tilmaamay in sabtidii shalayto ay fuliyeen howlgallo aad u ballaaran oo ka kala dhacay jubbooyinka, shabeellooyinka, baay iyo hiiraan. ugu dambeyntiina daawadayaal booliiska waddanka UK ayaa arrin mar la araga samaysay kadib markii raaligelin ay ka bixiyeen nin Soomaali ah oo 70 sano iminka muddo laga joogo si xaq darra ah loogu dilay waddankaasi. qoyska aabba Soomaali ah oo si khaldan loogu dilay dil ayaa booliiska raaligelintaasi 70 sano kadib ay u gudbiyeen. booliiska South Wales ayaa raaligelintan ka bixiyay waxaana ay qirteen in dacwad oogista ay khaldanayd oo ninkaasi Soomaaliga ah si khaldan loo dilay. shaki kuma jiro in Maxamuud Mataan uu ahaa dhibane wajahaya cadaalad darro ka dhalatay xeer ilaalin khaldan, taasi oo ay caddahay in booliiska qayb ay ka ahaayeen. xaaska Maxamuud Mataan oo Laura lagu magacaabo iyo 3 wiil oo ay dhaleen oo la kala yiraahdo Daawud, Cumar iyo Mavin oo sidoo kale loo yaqaanay Eddie ayaa 46 sano waxay u ololeynayeen in la cadeeyo dambi in uusan gelin aabahoodii. dhammaantood waa ay geeriyoodeen, laakiin mid ka mid ah 6 carruur ah oo awoowo uu u yahay ayaa raaligelinta booliiska ku tilmaamay mid daacad aan ahayn. aad bay u soo daahday sababtoo ah dadkii ay dilkiisa aadka u saamaysay haddana lama joogaan oo waa ay dhinteen. welina ma naqaano erayada sida waan ka xunnahay ayay tiri Tanya Mataan oo awoowo uu u yahay ninkaasi sida xaqdarrada lagu dilay. Maxamuud Mataan ayaa si khalad ah loogu helay dembi ahaa in uu dilay qof dukaan iibinayay oo lagu magacaabi jiray Lily Volbert. xaaska Mataan ee Laura waxa ay dhimatay 10 sano kadib xukunkaasi. dhammaan carruurtiina waxa ay wada dhinteen iyaguna sanadihii dambe, balse waxaa Cardiff ku nool carruurtii ay sii dhaleen oo awoowaha uu u yahay. sanadkii 1966kii 2 sano ka hor intaan Mataan la bari yeelin ayaa meydkiisa laga soo bixiyay qubuuro khaas ah oo ku yaalo xabsiga waxaana lagu aasay qubuuraha Cardiff. waxaana qabrigiisa lagu dhajiyay dhagax lagu qoray cadaalad darro ayaa lagu dilay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.